kulanti wanaagsan daawadayaal waa saaxiibkeen Xasan Toob oo idin soo gudbinaya faaladii fanaankii guuleystay ee Muqdisho Sharma Arki Cabdinaasir Maxamed Sharma Boy waa mid ka mid ah rajada fanka guusha Muqdisho daawade dareen culus u yeelo wax badan oo aadan ka ogeyn 21 jirkan guuleystay Sharma 1999 ayuu ku dhashay magaalada Burtinle ee gobolka Nugaal oo ah magaalo ay degan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed degmadan oo ah magaalo qiimo leh ayaa ka badbaaday dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxa ayna u dhaxaysaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe market meesha hada istaag bajaajlaha bartiisa ku celi xabad wado ama xeebta u soco ha ingal xasano celi ciyaal ku dhac bacda fanaankan guuleystay ayaa ku soo barbaaray xaafadda Nasteexo degmada Wadajir caasimadda dalka ee Muqdisho dugsigiisa hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay Hagen Primary and Secondary School 17 caruur ah oo ay dhaleen hooyadii iyo aabihii ayuu hoggaan firfircoon u ahaa waa inta soo saan qaaday nolosha fanka waxa uu jeclaa yaraantiisa daayarkan ayaa taabuurka iskuulka ku soo bandhigi jiray bandhigyo la mahdiyay waxaana hiba iska caadi ah u ahayd curinta erayada iyo hindisada laxamada sanado ka hor ayuu mar qur ah la soo shacbaxay sameynta heesaha fanaaniinta rabriska ah bandhigyo ay la dhaceen dad badan oo Soomaaliyeed ayuu muujiyay marka ay sheekada halka marayso waxa meesha ka cadaatay in fanka uu isaga u baahan yahay balse fursadda mar uun ay saacidi doonto King of Muqdisho Alfanaan Sharma Boy marnaba kama niyad jabin hankiisii fanka waxa uu mar waliba muujin jiray sida uu masraxa u soo fuuli lahaa tani waxa ay xaqiiq u tahay bilowga guusha maanta uu gaaray daayarkan gilgilay guud ahaan dunida Soomaalida baradkii adeerkay dalwa cali cadaawe ciidamada ruushka kuwa shishka abooda kashka wiilka saara wishka kabi samaritishka bolo gadibaydii bakshish Alfanaan Sharma Arke waxa ay wada dhasheen wariyaha arimaha bulshada ahna samafale Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofaysane suxufiga isaga oo ku mashquulsan howlihiisa shaqo ayaan barta WhatsApp-ka kula xiriiray warbixin dheeri ahna uu siiyay maanta Xasan Sharma Arke Cabdinaasir Maxamed waa walaalkay labada iga yar waxa uu sanadkii 1999 ku dhashay degmada Burtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal oo dhaxaysa magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo waxa uu ku soo barbaaray magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir xaafadda Nasteexo halkaasoo dugsiga Quraanka iyo ilaa waxbarashada ilaa dugsiga oo maaragtay uu ku dhameeyay dhinacan fanka oo dadku hadda aad u yaqaanaan waxa uu soo bilaabay yaraantiisii waxay ahayd wax uu jecel yahay oo runtii uu ku soo barbaaray iskuulka oo kale waxaan xasuustaa in taabuurka uu heesa ka qaadi jiray oo heesaha uu aad u jeclaa sidoo kale waxa uu jeclaa in uu dhoriyo heesaha oo isagu sameeyo heeso marka waa nin dhalinyaro oo runtii marka aad u jeclaa muddooyinkii ugu dambeeyeyna hadda caan ku noqday heesaha raabarka maaragtay marka taariikhdiisa intaas ayaan rabaa inaan ku soo ururiyo dabeecadiisa si gaar ah maadaama aad walaalo tihiin maxaa ka xusi kartaa wariye Soofaysane Sharma Arke waa nin runtii kaftan badan oo maaragtay furfuran oo qofka marka ay isarkaan oo ay ugu horeyso aad moodaysid in dhowr sano xitaa maaragtay is yaqaaneen nin kaftan badan weeyo oo aan dib badnayn dabcan inta aan maaragtay aan ka xusi karo dabeecadiisa oo dabeecadan la yidhaahdo bashaasnimada maaragtay shakhsiyadda bashaasnimada waayahay markii mar qura uu qabsaday
fanka magaalada muqdisho iyo Soomaaliya oo idil oo hadda bulshada Soomaaliyeed ay wada taqaano oo walaalkaaga yahay adigana aad samafalle suxufi sare aad tahay oo arrimaha samafalka aad uga shaqeeya oo warbixinada arrimaha bulshada falanqeeya aad tahay sharmaake misaragteeno ma ka wada hadasheen arrimo kala duwan oo mustaqbalkiisa ku saabsan iyo sida uu fankiisi horumar dheeri uga gaari lahaa ilaa maadaama aad adiga samafalka iyo horumarinta arrimaha bulshada aad ka shaqeysid oo expert ku tahay طبعا dad walaalaha nahay sida aad sheegtay xiriirkuna dee waa joogto marar badan baan aragnaa kulamo aanan qorshayn oo xaafadda aan ku kulanno iyo kuwa aan qorshaynaba aan ku sheekaysanaa sidoo kale dadka taleefonka iyo internetka aan ka wargelinaa marka talooyin badanna waan siiyaa oo ku saabsan sidii uu sii horumarin lahaa fankiisa islamarkaana sumcadda uu bulshada ku dhex yeeshay uu u ilaalin lahaa marka waxyaabo badan oo iga qaatana waa ay jirtaan waa nin runtii aan dhihi karo waa nin degan nugul oo walaalnimada iyo weynaanta maaragta aad u qadariyo sharmaake ma asagaa kaa weyn mise adagaa ka weyn maya aniga ka weyn waxaan ka weynahay waa ku sheegay laba da-baan ka weynahay ha si fiican laba da-aa ka weyn tahay familki iyo aabi iyo hooyo iyo maxay si gaar ah u iraahdeen markii uu wiilkiina uu fanka qabsaday oo uu saameyn xoogan yeeshay familka arintaas sidee u arkeen waa ogtaa waalidiinta iyo mararka qaar saameynta laga kulmi karo wallahi xatana hooyo iyo aaba markii hore ma aysan la jeclayn inuu fanaan noqdo ninkaan inuu wax barto oo takhasus kale uu yeeshay aad u daneynayeen laakiin waxa dhici doona dee waxa weeye cid ay la tashanayaan iyo cid go-aamin karta maaragta ma jirto marka waalidku ma aysan jeclayn inuu fan noqdo oo ilaa hadda ayay jecel yihiin inuu iska dhaafo heesaha iyo laakiin marka uu yani hadda magac yeeshay oo wixiina wax isagu uu jecel yahay oo hobkiisa ah oo uu ku dhegan yahay waalidka maaragtay waxa ay ka dhacaan dee ma jirto laakiin waalidiintu marka hore waxa ay jecel yihiin oo ay kula talinayeen ma aysan ahayn sharmaarke oo leh hal abuur iyo hibo gaar u ah fankiisa ayaa waxa uu saacidaa fanaaniin badan oo muqdisho ku nool isaga oo heese la qaada sida fanaanka caanka ah ee Diamond Plata oo inta badan soo saara fanaaniin aan la aqoon si ay caan u noqdaan tani waa tusaale qeexan oo cadeynaya in Sharma Boy uu diyaar u yahay in uu soo saaro fanaaniin badan oo aysan bulshada aqoon bal qiyaas rajada ka dhalan karta qof guuleystay in uu juhdigiisa ku bixiyo inuu soo saaro dad cusub Sinsima toto mpe funguo za bima kanitoa bongo nimefika mpaka China toto zipuka kishungi nimezima kala adi ani ila simo so galabtayda macaan ila sikasewa sobo baby igu soo siko suuradaadan keele ani simasewa santagan baby adi kumarona santagan asa nioneshe alichokupa mama sugua sugu ana iyo subag sariirtaan ku cabaa sugua aha sugua faaladan ahmiyadeeda ma ahan in aanu nacayb u muujino fanaaniinta muqdisho waana dareenka dhabta ah ay doonayaan dad badan oo Soomaaliyeed in ay ka ogaadaan fanaan ama shakhsi guul gaaray taasina waa arin aan marnaba la qarin karin qarkaag saramba ku qarwa waad iqaate ani iqaabil qaarka dambe qof tambaleega kala baby kanaga buri kali imaaw kaftakaaga jeclahay kalkooli kashana isaa kadibkana iga dhaafe kama kismi ani ila kifaa kadibkana iga dhaafe kama kismi ani ila kifaa kala baby kanaga buri kali imaaw kaftakaaga jeclahay kalkooli kashana isaa kadibkana iga dhaafe kama kismi ani ila kifaa kadibkana iga dhaafe kama kismi ani ila kifaa
أنا كادقي كرلي شاحة وابينا برئي هوس أنا كادسا أجيكذان كل جوجوغا جيفكاغا كوغو أديغا أنا كوكافين كوكيني كون كالي كورئي هوس كاغا حيردها بدن كونفور قلبيت إلا إكاكوما كندا كوكيني تلحيس كولا تاقي كونفور قلبيت إلا إكاكوما كندا كوكيني تلحيس نقولا تاقي كل ألابت أنا كادقي كرلي شاحة وابينا برئي هوس أنا كادسا أجيكذان كل جوجوغا جيفكاغا كوغو أديغا guuleysta dhammaantiin waa soo jeedintii saaxiibkiin xasan mustafa isxaaq xasan toob farsamadii liibaan shoorla kulanti dambe oo xiiso leh inaan ahay qof lazy waxaan ahay busy sharma boy waa wiil geesi ha imoodi crazy ama ah qof lazy waxaan ahay busy sharma boy waa wiil geesi carwo dhafoore dadku kala ayaan roon ama kala aqoon dheer ama kala asluub weyn carwooyinka kala duwan dhaafay waxaa magaalada laga furay carwo dhafoore daahirow aboowe anna maalinkayga waan ku hayaa carwo aan labiska ciidda aniga iyo carruurta u doonna ee ii faahfaahi maxaa lagu iibiyaa carwo dhafoore carwo dhafoore waxay ku taallaa isgooska banaadir isgooska banaadir ee ku taallaa ee magaalada muqdisho magacaygu waa axmed xumow cilmi waxaan ahay musharax u taagan xildhibaan heer federaal ah waxaan ahay aqoon-yahan wax badan deegaanka hirshabeelle wax badan ka soo qabtaan ahay waxaan jeclahay sanadkan 2021 in fursad la ii siiyo si aan deegaankayga aan wax badan aan ugu qabto insha Allah